ربينا على الإسلام دينا بفضل الله رب العالمين. رعانا الله في أبيات طهر تجاهد أن تقيم الدين فينا. فسرنا بالجماعة هدي طه نقيم بظلها الحق المبين. وكم كنا نتوق إلى بلاغ نكون به الهداة المهتدين. وها قد خصنا الرحمن حقا ألا أنعم بصدع الصادعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeenii sidaan ugu barbaaray jamaacada haakadaa tarabaytu. waan ku wareysanaynay xubno ka tirsan jamaacata as-saadicuuna bilxaq oon inkugu talagalnay inaan la wadaagno bishaan ramadaan insha allah. barnaamijka caawa waxaa marti noogu ah maxamed cali raage. maxamed soo dhawow. maxamed cali raage oo loo yaqaano Faray wuxuu ku dhashay tuulada Xarfo oo hoos timaada magaalada Gaalkacyo. halkaas ayuu quraan ku soo bartay. kadib wuxuu u soo wareegay magaalada Gaalkacyo oo waxbarashadiisii ka bilaabay dugsi hoose, dugsi dhexe, dugsi sare uga baxay. kadib wuxuu ka qalin jabiyay jaamacadda East Africa. wuxuu bartay maadada loo yaqaano Business Administration ama ganacsiga, maamulka ganacsiga. maxamed markale soo dhawow. allah subxaanahu wa tacaala maaragtay wuxuu ku qadaray in aad islaamka barato, diinta islaamka fahamto wax badan. marka yacni runtii hadaaya sidii aan sidaa ii sheegtaba, yacni jamaacada intaad soo haleelin dabcan waxaa kaaga horreysay marxalo kale oo aad soo martay ama nolol kale oo aad soo martay. bal inaad noo suurayso noloshaas siday ahayd, qaabkii iyo dadkii aad ku dhex nooleed iyo maaragtay kadib haddana yacni jamaacada marka aad soo haleeshay iyo iyadana ku dhex noolahay. bal inaad noloshaas aad nooga hadasho oo dhinacyadaas taabanaysa. Toro waa mahadsan tahay. bismillahi raxmaani raxiim. sidaad sheegtay Toro, waxaan ku dhashay horta aniga degmada Xarfo oo hoos timaada magaalada Gaalkacyo. halkaasaan waxaan ku qaatay marka dugsiga iyo qur-aankii aan halkaa ku qaadanayay wuxuu ahaa qur-aan maaragtay aan nolosha taabanayn xaqiiqatan, oo noloshayda aan saameyn weyn ku lahayn. inkastoo aan yaraa haddana maaragtay qur-aan nolosha taabanaya oo maaragtay macaanidiisii wata ma ahayn. qur-aan un maaragtay qaadashaa unbuu ahaa. kadib waxaan usoo wareegay magaalada Gaalkacyo oo halkaasoo maaragtay aan ka bilaabay isla maaragtay malcaamad dugsi qur-aan. dugsiga qur-aanka markii aan Gaalkacyo ka bilaabay iyo marxaladii hore farqi baa u dhexeeyey. magaalada waxaan maaragtay Gaalkacyo la noolaa eedaday oo runtii khayr allah siiyey qeyb weyn ka ahayd maaragtay tarbiyadeyda. markii aan halkaas qur-aanka ku qaadanayay, qur-aankaas wuxuu ahaa maaragtay qur-aan ka duwan maaragtay qur-aankii aan kusoo qaadanayay maaragtay degmada Xarfo. qur-aan wuxuu ahaa noloshayda marar badan taabanayay oo macaanidiisa nala dareensiinayay, intii nala soo fariisiyay naloo sharxayay oo maaragtay ka duwan kii hore, dhinacyo badan uga duwanaa buu ahaa. kadib waxaan bilaabay maaragtay iskuulkan waxaan ka bilaabay magaalada Gaalkacyo oo dugsi hoose baan ka bilaabay magaalada. markaas runtii iyada laftigeeda maaragtay nolosheedii yaraantii baan iska sii watay weli oo dareen weyn iguma lahayn. kadib waxaan u gudbay marxaladii dhexe oo icdaadiga ahayd. marka marxaladaas markii aan marayay baa alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay wuxuu isiiyey dareen anoo galaaska lixaada. markaas ilaahay subxaana wa tacaala dareen buu isiiyey aan ku fahmayo waxyaabo badan oo xaqaa'iqda diinta islaamka ka mid a markii horena iga qarsooneyd. taasna ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabo badan oo igu kaalmeeyey baa jirtay oo aan uga soo go-ay dhallinyaradii xaafadda aan isla nooleen markaas, oo dhallinyaro iska wareersan ahayd oo ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay iga soo dhex qabtay markaa iyada ah. oo markaasna waxaan usoo go-ay marka masaajid xaafadda u dhowaa baan ku taxnaa oo wax ka akhrisan jiray oo maaragtay xalaqaad baa ka jiray laftigiisa. inkastoo duruustaas aysan ahayn duruus maaragtay noloshii dib ugu soo laabanaysa, haddana alxamdulilah ilaahay maaragtay noloshii hore aan ku noolaa nolol ka duwan
inuu isoo geliyey maaragtay waan dareemayay nolol waxay ahayd la isugu yimaado darsiga marka lagu kala tagana aan saameyn weyn oo dambe sii lahayn oo aan la isaga daba imaanayn macnaha haddana berri aan ku xisaabtamayno darsigii maaragtay wadaadku bixinayay ama aan masaajidka ka qaadanaynay kadib waxaan ku xirnayn maaragtay masaajidkaas laftigiisa wadaadadii anigoo runtii dareemaya inaysan weli aanan gacanta ku haynin maaragtay meeshii saxda ahayd oo aan islahaa maaragtay darkii aan ka cabi lahaa oo aan uga gudbi lahaa marxaladda maanta aan ku suganahay anoo weli gacanta ku hayn kadib alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay waxbuu ii kala caddeeyey isla sanadkii 2009 baa waxaa dhacday taqriiban wadaadadii baa waxay sameeyeen marka in ay maaragtay dowladdii markaas ka jirtay meesha puntland inay maaragtay ay bayaan soo jeediyeen ay waxyaabo badan oo dowladda taageeradeeda qeyb ay ka tahay annagana markaa waxaana la beri jiray tawxiidka iyo caqiidada marka waxaan dareen fikrad waxaa su-aal waxay ugu soo dhacday ah war tawxiidkii shalay laguu sharxayey oo nolosha qeybo badan oo ka mid a taabanayay oo runtii ahaa ra'sigii meesha ugu sarreeyey madaxa baarkii ugu sarreeyey ahaa miyuusan ahayn wadaadadii shalay kuu sharxayay nimankan culimmadii miyaysan saan ahayn sababtoo ah markii dowladdii walaagii la siiyey oo dowladdii lagu biiray anigii markaa go-aan baan qaatay isla habeenkii inaanan ma aragtay halkaas aanan horey ugu sii socon oo aan ka istaago oo ilaahay subxaana wa tacaala arrin uu maaragtay iwaafajiyey bay ahayd kadib sanadkii 2011 taqriiban sanadkii 2010 waxaan aaday magaalada boosaaso oo markaas dad qaraabo ah iyo booqasho aan u aadnay halkaasaa marka waxaan kula kulmay ninka la yidhaahdo sheekh bashiir oo runtii adeerkay aniga ahaa markaas haddana adeerkay ah yacni markii aan la kulmay adeer bashiir waxyaabihii aan iska wareysanay oo runtii dareenka igu dhaliyay waxaa ka mid ahaa aniga noloshayda taabtay waxaa ka mid ahaa inuu igala hadlay ma aragtay qur-aanka inuu igala hadlay markuu adeer qur-aanka igala hadlay aniga waxaan dareemay marka inaanan waxba gacanta ku haynin xilliga iyada ah ee aan u baahanahay inaan maaragtay maanta noloshaydii aan wax weyn ka bedelo saameyntai ugu yeelatayna waxay ka mid ahayd runtii inuu yiri hadalladii u yiri waxaan ku xusuustaa inuu yiri noloshu saan inaysan sii ahaaneen macnaha haddaad tahay qof raba in maaragtay beri ka maalin dacwadan u qumo saan nabadda noocaana inaan lagu sii jirin bay u badan tahay saaxiib marka waxaa ka yeelataa kitaabka qur-aanka ah oo saaxiibku ugu dhow samayso marka aad la noolaatid xaalad kastoo aad ku sugan tahay marka markaas kadib 2011 ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu iwaafajiyey inaan iskuulkii dhammeeyo oo aan u wareego magaalada marka boosaaso halkaasoo aan u tegay marka adeerkay oo gurigiisa aan ku noolaa adeer marka noloshii hore aan ku jiray maadaama aan xaq raadinayay oo dalab uu igu jiray waxaan helay marka meel maaragtay aan ka tilaabsan karo alxamdulilah rabbilcaalamiin oo waxyaabo badan oo xaqaa'iqa in meesha lagu hayay tusaale ahaan oo kale aan noloshii aan marka guriga adeer aan kala kulmay waxaa ka mid ahayd qur-aankana aan isla daraasayn jirnay oo maaragtay inta soo bilowna aanu isla akhrin jirnay alxamdulilah noloshii nooca ahayd marka kadib 2012 waxa aan la kulmay sheekh bashiir sheekh maxamed baa mar labaad nasiib u helay inaan is aragno alxamdulilah markaasaan xaqaa'iq waaweyn oo islaamka ah aan isla lafa gurnay oo runtii anigana baadigoobkeeda aan ku jiray ay ka mid ahayd macnaha caqiidadan iyo alwalaa walbaraa aniga qof muslina maadaama aan ahay oo islaam aan sheeganayo aan u baahanahay cid ma aragtay islaamkan aan la garabsado adeer waxaan ka dhigtay macnaha saaxiibkayga ugu dhow inuu ii ahaado oo waxyaabo badan oo xaqaa'iq oo islaamka oo maanta iga qarsoon uu ilaahay sabab uga dhigo inaan ma aragtay inaan asaga ka helo marka adeer markii aanu isla lafa gurnay runtii dareen aad u weyn baa i galay oo noloshayda wax weyn ka bedelay macnaha masiirka ay markaa ku socotay ama habsocodkii noloshayda qeyb weyn ka taabtay oo waxaa qeyb ka ahayd macnaha waxaa ka mid ahayd islaamku maanta xaaladda uu ku sugan yahay oo aniga culays ugu haysa marka iyada ah haddana runtii culays ka weyn ugu haysa inuu iga warramay macnaha iyo inaan xaaladdan iyada insha allah lagu sii jiri doonin nebiguna calayhi salaam uu ka hadlay oo maaragtay xaaladdan inuu islaamku soo maray oo uu ka soo baxay uuna ku laaban doono macnaha marka dadka waxaa maaragtay wanaag wuxuu u sugnaaday dadka markaa maaragtay ku dheganaanaya islaamka maaragtay xaaladdaas markuu ku sugan yahay marka anigii dareen baa igalay dareenkaas igalay marka saameyn buu igu yeeshay inaan horey u socdo oo aanan maaragtay halkaas aanan ku hakanin alxamdulilah marka intaa wixii ka dambeeyey wixii maaragtay tilaabadaydu waxay noqotay waa meeshii waxaan dhihi karaa waa meeshii aan jaranjarada kasoo qabsaday halkaasay ahayd hahay halkaasay ahayd jazaaka allahu khayran marka waa meesha macnaha xaqii aad raadinaysay fahamkii aad raadinaysay macnaha aad
dareentay inaad xoogaa markaan tilaabo aad hore u socoto alxamdulilah marka dabcan nolol horena waa soo aragtay dad waa ku dhex nooleed maaragtay magaaladii aad ku dhalatay gaalkacdii aad timid yani marka ficlan noloshan hadda aad dareentay iyo markaad isku barbar dhigto dadkii hore iyo nolosha ay ku jireen yani farqiga u dhexeeya marka bal qaabkii aad ugu dhex nooleed adoo dareenkan helay noloshii horena maaragtay kasoo gudbay yani iyadana inaad noo suuraysan karana doctor waa mahadsantahay horta markii ilaahay subxaana watacaala uu waafajiyey inaan xaqa ilaahay subxaana watacaala aan cagta halkaa ka soo saaray maaragtay ilaahay subxaana wuxuu igu kaalmeeyey inaan horey u socdo oo maaragtay halkaas aan kala jaan qaado runtii waxyaabaha saameynta weyn ugu lahaa waxay ahayd banaanka wixii lagu hayay wax ka duwan baa marka u imid taasna waxay dhalisay in maaragtay noloshayda iyo habkii ay ku socotay wax weyn ay ka bedesho waxaan u imid dad qur-aanka aan anigu akrinayey marka hore banaanka aan ku akrinaya laakiin sida anigu aan u fahamsanaa oo marka aan u arkayey si ka duwan oo maaragtay ka wanaagsan wax badanna oo maaragtay aan la sinayn markaa iyaga u haya waxaan u imid dad dareensiiyey xadiidkii nabiga sal allahu alيh wasalam oo ahaa maaragtay in qoom yani daraaseynaya ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa waxyaabaha ilaahay uu ku manaysanayo inay ka mid ahayd inay kusoo degeysa raxmadda ilaahay subxaanahu watacaala macnaha daraasada marka hore ma ahan keliya inaan xalaqe inta fariisto aan kitaabka akhristo taa daraasa runtii ma oran karin saas waa u arkayey laakiin markii aan arkay in la daraaseynayo oo la isla qaadanayo oo la isla akhrinayo oo la iswareysanayo oo markii aan dadka walaalahay ku dhex jiro aan dareemayo in kitaabka ilaahay la ila daraaseynayo iyo darsigii aan anigu arkayey inuu nafteyda anfacayo la iisoo diyaarinayay aan maaragtay laila daraaseynayo runtii wax weyn buu uga duwanaa midkii aan shalay banaanka ku hayay marka dad waxaan u imid maaragtay tarbiyadoodii hore oo yaraantooda ama yani soo bilaabatay xilli hore kusoo tarbiyoobay baa anigii markaa waxaan u imid ayagiiyo maaragtay diyaar u ah oo u heelan in ay maaragtay itarbiyeeyaan oo isoo dhoweeyaan anigana alxamdulillah ilahi wuxuu iwaafajiyey inaan diyaar u noqdo markaasna tarbiyadii noocaa ahayd aan jaanis u helay alxamdulilah kitaabka ilaahay inaan daraaseyno inaan caqiidadii daraaseyno dhammaan dhinacyadii kala duwanaayo diinta islaamka in marba la ila daraaseeyo waxyaabihii saameynta weyn ugu lahaa waxay ahayd waxaan wax ka daraaseyn jirnay kitaabka dilaalka oo runtii anigu markii hore aan u arki jiray inuusan saameyn weyn lahayn laakiin markii aan gudaha soo galay aan dareemay inuu yahay tafsiir nolosha qofka taabanaya macnaha tafaasiirta kale dhan tafaasiir wanaagsan weeye maasha allah khayr allah siiyo culimmadii sheekh sayid raximahullah yani inuu asaguna si gaara macnaha ula noolaaday kitaabkan qur-aanka yani igu soo gudbinaya waxaan dareemayay nolol aniga laftigayga dareen igule oo u baahanahay inaan ku fekero aan u baahanahay maaragtay inaan wakti fiican aan la qaato uu dareensiiyey marka dabcan noloshaas haystaa laakiin dadkii aha kasoo tagtay iyo odayaashii magaalada iyo ayagana si u dareensaneed macnaha iyo dhaqankii jiray iyo macnaha maadaama hadda adig kitaabkii ilaahay aad la noolaatay maasha allah yani tore waa mahadsan tahay horta runtii waxaan arkayey dadkaas inay ku sugan yihiin xaalad maaragtay ay u baahan yihiin in laga badbaadiyo laakiin aniga laftigeyga maadaama culays ay igu haysay dareenkaas uu aad iu cuslaynayey oo aan dareemayey xaaladda aniga ilaahay subxaana watacaala uu iga soo badbaadiyey inay tahay xaalad dadkaana ay u baahan yihiin in maaragtay ay ka badbaadaan ayagana laga soo qabta ay ahayd haddana waxaan maaragtay xilligaas taagneyd dacwadu inay ku socotay maaragtay si siri inay ahayd anigii marka awood uma yeelanin aan dadkaas maaragtay aan dadkaa ugu yeero xaqaa'iqdan aniga aan fahmay oo ilaahay subxaana watacaala i waafajiyeyna waxaan dareemayay inay u baahan tahay laftigeyga inay raasikh maaragtay ay igu fariisato oo aan waqti u helo tarbiyadan xilligaa kadib marka aan u diyaar garoobo dadkaas walaalahay ah oo aan kasoo tegey oo aan dareemaya xaaladda ay markaa iyagu ku sugan yihiin inaan maaragtay ugu yeero dacwadii oo aan markaa iyaga gaarsiiyo marka xilligaas xaaladaasaa jirtay saasaana maaragtay aan taasaa i joojinaysa ha macnaha waxaa ku joojinaysa kitaabkan adiga hadda aad baranaysid oo lagu tusay macnaha la isweydiinayo maxaa kasoo faa'iiday maxaa ku taabtay maxaa maaragtay soo dhaqan gelisay yani meesha aan awl la isweydiinaynin yani ama dadka iyagoo dhahayaan islaamkii sheeganaya aan kitaabka hadda kitaabka ilahi subxana wataala isku xukminaynin oo xukunkooda wax kale uu yahay odayaashii loola laabanayo macnaha oo yani xataa haddii maaragtay qisaas iyo wax yimaadaan aan yani kitaabka ilahi loo bandhigeynin dabcan maasha allah meesha ku jirta idan sooma tore aad baa u mahadsan tahay runtii waxyaabaha saameynta weyn le waxaa ka mid a markii ilaahay subxaana watacaala uu itusay waxyaaba badan ii ifteemiyey xilli waxay soo martay aan qeyb ka ahaa kulan weyne
ay lahaayeen maaragtay tolkayga ay lahaayeen kulan weynihii qeyb baan ka ahaa anigu dadkii markaas tegey oo goobjooga ka ahaa waxyaabo runtii waxaan kala kulmay sabab u noqday in maaragtay aan dareemay inaan ku suganahay xaalad maaragtay maasha allah ilaahay subxaana watacaala uu iwaafajiyey islaamkii dhabta ah in ilaahay subxana watacaala iwaafajiyey waxyaabihii ii caddeeyey baan halkaa kala kulmay haddaan wax yar kaaga sheega tore xilligaas waxaa tagnay meel ka baxsan magaalada markii majliskii la fariistay baa waxaa jirtay nin oday ahoo reerka ka mid ah baa maaragtay la dooranayey ninkii odaga ahaa runtii dareen buu aniga laftigay geliyey oo wuxuu yihi markii hadalka uu bilaabayeyba wuxuu yihi idhegeysta haddaa rabtaan aniga inaad doorataan anigu diyaar waxaanu ahay kitaabka ilaahay inaan reerka ku dhaqo awal baynaan kitaabka oo dhan ku wada dhaqmeyn baa hadalkiisa ka mid ahayd laakiin maaragtay inta naga qusaysa oo hadda taagan qisaasta iyo diyada iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah baan waxaan diyaar u ahay inaan reerka ku dhaqo adigu haddee meesha rag badan baa fadhiyo rugcadaaya warkiiba maaragtay laysla dhinac maray nin odayaa warkii qabsaday oo adigu markii ugu dambeysay wuxuu yihi niyow idhegeyso annagu waxaan leenahay tol baan la xiriirnaa annaga keliya ma nihin xeerar baa jira aan weligeen ku dhaqmi jirnay oo soo jireena waxaasoo dhan in laga tallaabsadana ma fududa ninkii odaga ahaabaa warka ku laabtay oo wuxuu yihi dadkaas aad leedahay tolka aad ka hadlaysa haddaan annagu ilaahay kitaabkiisa qaadano ayaguna waynala qaadan doonaan oo waynala fahmi doonaan insha allah macnaha inaan ilaahay raalli gelino baa ka horeysa inaan maaragtay insaan aan raalli gelino hadalkii ninkii baa ku laabtay oo asna waa nin aada hadalka u helo ahaa markaas iyada ah hadalkii wuxuu yihi niyahow maanta ma waxaa rabtaa inaan gar cadaawo maaragtay aada noogu yeertid asagoo markaa u qasdaya kitaabka ilaahay awal dhegtaan ka maqli jiray laakiinse maalinkaasaa igu horreysay macnaha inaan gar cadaawe fadhi anigu aan fadhiyo laga sheego macnaha runtii dareen aada u weyn bay igelisay waana dhibsaday aad baana uga naxay arrintaa iyada ah xaaladdaasna waxay i dareensiisay qofka hadalkan ku hadlaya macnaha meesha uu ku sugan yahay inaysan macnaha islaamkii ilaahay subxaana watacaala uu rabay iyo wax u dhow aysan ahayn ee ay laba kale yihiin kadib hadalkii baa lasii waday wax badan hadalkii markii la jiidjiiday meeshii kale oo iyadana saameynta iga yeelatay waxay ahayd warkii baa lasoo xiray waxaa la yihi nimayo qodobkaas isaga anooga kaadiya waxaan sameynaynaa odayga reerka ugu sarreeya baan dib ugu celinaynaa asagaa ma aragtay go-aan ka soo saaraya iyo qodobkaa isaga ah asagaan dib ugu celinayna waa in kitaabkii ilaahay macnaha la isku xukumo oo qisaastii iyo lagu kala qaato macnaha ninkaasaan marjac uga dhigaynaa macnaha anigii marka aad baan uga naxay waxaana dhaqso iigu soo degdegtay aayaddii qur-aanka ahayd oo ilaahay subxaana watacaala uu lahaa fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi waarasuul macnaha arrintan khiyaar kama furnaba sideeda dad muslimiin haddii la yahay oo intaynaan meesha isugu nimid aanu muslim nahay khiyaar kama furna inaanu meel kale aadno wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim macnaha meel kale oo la aado ma jirto arrintan ilaahay baa jaangooyey weliba waxaan ka booday ninkii odaga ahaayoo la dooranaya hadalkiisa waxaa ka mid ahayd walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaabi lacalakum tattaquun buu ilaahay qur-aanka ku yiri marka runtii xaalado waxay ahayd maaragtay dareenkaas iyada ah xambaarsan xaaladaasaa marka waxay itusinaysay bulshadii anigu aan markaa ka imid xaaladda ay ku sugan tahay iyo bulshadan aan u imid oo kitaabkii ilaahay daraaseynaysa oo diyaar u ah in kitaabku hago waxyaabaha aan aadka u xusuusta waxaa ka mid ahaa dadka aan markaas la tacaamulayay oo runtii gacanta igu hayay waxaa ka mid ahaa macalin sheekh maxamed cali mire ustaad najiib injineerka khayr allaha siiyo waxyaabihii marar badan oo weydiin jiray waxaa ka mid ahaa kownkan ilaahay subxaana watacaala oo intaas la eg oo faseexa ah oo weyninka intaas la eg leh inaad kala tacaamushid oo aad la samaysatid ilaahay xiriir adiga iyo ilaahay idinka dhexeeya macnaha inaad la samaysatid oo aad ku fakertid marka waxyaabihii aan ka xasuustayna taasaa ka mid ahayd jazaaka allahu khayran maxamed aada umahadsan tahay فسرنا بالجماعة هدي طه نقيم بظلها الحق المبين وكم كنا نتوق إلى بلاغ فعلا marka maadaama jamaacadii soo gashay oo xarakadii ku dhex noolaatay yani marka jamaaca iyo laga hadlayo maaragtay iyo dad diinta ilaahay subxaana watacaala maaragtay ku walaaloobay ama ku kulmay ama isku xiriirinaya yani waxa waaye walaaltinimadaas yani ay ku wada nool yihiin macnaha waxa waaye qof walba iskama suurayn karo laakiin waxaa suurayn kara yani qofku dhex noolaaday ama maaragtay maxaa la lahaa yani kamid noqday dadkaas yani iswalaaleysanaya marka adiga bal inaad noo suurayso
walaaltinimadii jamaacada markaad soo gashay dadkan siday u noolaayeen ama adeer ha noqdo ama maaragtay yani eedo oo maaragtay yani dadkii aad isku fac ahaydeen bal inaad ayadana maaragtay insha allah nala wadaagto. doctor waa mahadsan tahay horta alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay markii xaaladaas iyada uu iga soo badbaadiyey oo xaaladan aan soo galay runtii waxaan u imid dad walaalahayo maaragtay isjecel oo runtii waxaa aad mar walba iigu soo dhacaysa xadiidkii nabiga sala allahu calayh wasalam ahaa yani mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim kamathali اljasadi اlwaaxid ida ishtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'iru اljasadi biالsahri wاlxuma. xadiidkaas macnaha waxaan ka dhex arkay ma aha oraah inaan u maqlay ma aha, laakiin waxaan ka dhex arkay dadkii aan la noolaa oo adeero ahaa oo walaalayaal ahaa oo wiilasha ahaa oo markaa iyada ah aan ma aragtay usoo wareegay oo anuu ilaahay iga soo badbaadiyay. runtii usoo wareegay ma dhihi karo, laakiin ilaahay intuu iga soo badbaadiyey meel uu ilaahay ikeenay baan dhihi karaa. macnaha dadkaas walaalaha ah camalkooda iyo habkii ay u dhaqmayeen xadiidkaasaa ma aragtay iiga soo dhadhamay. waxyaabihii dhacdooyinkii aan xusuusta waxaa ka mid ahaa sanadkii 2015 waxaan ka imid magaalada Gaalkacyo, waxaan imid magaalada Muqdisho, waxaan wada soconnay. marka Muqdisho toos uma imaanin, caafimaad baa dhakhtar baan rabay inaan la kulmo, marka waxaan soo raacay adeerkay Bashiir Sheekh Maxamed, waxaan imid Hargeysa. marka waxyaabihii aan kala kulmay dadka walaalaha ahayd horta si fiican baa la iiga soo dhaweeyey maasha Allah. waxaana noqday qof macnaha dadkan la noolaan jiray oo kale, macnaha ma noqonin qof banaanka ka jiray, laakiin waxaan noqday sidii dad is yaqaanay camal baan isku wareysanay oo aan u wada noolaan. waxyaabaha aan xusuusta waxaa ka mid ahaa adeer daahir Jabuuti, waa adeerkay, waana murabbiga iyo khayr badan Allah siiyo, wax badanna waa ka faa'iiday. waxyaabihii uu ii faa'iideeyey waxaa ka mid ahaa inuu isugu kay xiray xuska ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo alle subxaanahu wa tacaala weynankiisa inuu isugu kay xiray. macnaha qofka muslimka ah inta alle mar walba uu xuso inuu u dhow yahay ilaahay, uu u dhow yahay xuska ilaahay inuu mar walba u dhow yahay, iyo inta uu kitaabka kusoo aroortay. Hargeysa waa ka soo baxay, Muqdishaan imid. waxyaabihii runtii la yaabka yani igu ahaa waxaa ka mid ahaa anigu dadka aad uma kala aqoonin, dadka walaalaha ah waxaan la yaabay oo isoo jiitay sida ay usoo dhaweynayaan. macnaha adeer Bashiir aniga ila socday, dabcan aniga laftigay way isoo dhaweynayeen maadaama aniga laftiga ayaga aan safar u ahaa. kadib magaalada Muqdisho markii nala keenay iyo sidii dadka maaragtay aan ka dheehday oo aan ka arkayay dadka macnaha walaalaha ah, aan ka arkayay siday isku jecel yihiin, sida maaragtay la isugu naxariisanayo. macnaha qof weyn oo adeer ah oo intuu adiga fadhiga kaaga kaco ma aragtay shaah kuu shubaya, biyo kuu keenaya, yani cunada adoo meeshaada fadhiya rabo inuu ku siiyo, macnaha kuu tarbiyeynaya sidii ma aragtay wiilka uu dhalay iyo adiga u simantihiin. macnaha bal ay dhici karto adiga haddii aad ma aragtay alle usii dhawaatid inaa wiilkiisa adigana aa uga sii dhowdaa. macnaha oo mar walba miisaankooda uu ahaa dadka walaalaha ah, yani ina akramakum cinda allahi atqaakum. waa markii mujtamaca muslimka lagu dhex jiro, macnaha qofka alle ugu dhow baa mar walba ma aragta ugu sii karaamo badan. dad aan isku kala soocayn qabiil, aan isku kala soocayn nasab, aan isku kala soocayn si kale, laakiin nidaamkooda nolosha uu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ma ku xiran tahay, hadafkana mideeyana ma tahay kelimada laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah. marka dad noocaas aan u imid. waxyaabihii noloshayda taabtay oo marka aan la kulmay runtii waxaa ka mid ahaa habeenada ka mida baan waxaan imid ma aragtay majlis dad walaalo ay fadhiyaan. runtii haddaan idhaahdo dareenkayga aan cabiro, markaas dareenkii igu jiray hadda ma cabiri kara, laakiin waan sheegayaa dadkii walaalaha ahaa markii aan majliska soo fariistay muddo dheer waxaan ka fekerayay macnaha dadkan oo dhan waxaa isku keenay ismeydaan aqoonin shalay, adigana kuma ay aqoon, adiguna maadan aqoonin, adiga daraadaabay dadkan isugu yimaadeen. macnaha waxay isugu yimaadeen inay adig kusoo dhaweeyaan, ay ku tusiyaan macnaha inaad walaalo leedahay, macnaha inaad dad leedahay. dad baa ka timid, dad ma aragtay dadkii ka wanaagsan in halkan maaragtay ay ku joogaan. alxamdulilah rabbil caalamiin. marka majliskii baa kelimad baa layga siiyey majliskii markaa meeshii aan fadhiyey. runtii waxaan hanan waayey dareenkayga inaan kelimadaas aan horey u dhaqaajay. macnaha waa hanan waayey sababtoo ah weli ma arkin dad yani ku walaaloobay kelimada tawxiidka laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah ay midaynayso oo jinsi kasta leh, yani cid kasta leh oo macnaha Soomaaliya degta, cid walba oo Soomaaliya degta isugu jira oo kelimada ay walaalaysay, haddana hal meel oo mowqif saan oo kale ah isugu yimid adiga macnaha inay kusoo dhaweeyaan. waxyaabihii aan aadka u dareemay oo muddo iga ilmaysiinaya waxaa ka mid ahayd macnaha oo dareen aan dareemay markaas. awal waa akhrin jiray, laakiin dareen aan u dareemay aayaddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kitaabkiisa ku lahaa
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. معناها مركز وحي إدرينسيسة معناها صورة وحي إيه عبرتي دد كان معناها مش سوين هذيك ما دام دد ولا لها أيهن وحكلو إذا مدينة إسنجرين وإلهي سبحانه وتعالى نعمة ديسة هتكون على هاي معناها الصورة دي أو يعني وحلاقة شيء كنا يعني ندري أهان لو قادنين وكتاب على سجى آخرين لكن هذيك لحد جوكتيد ودد كان سيدا جعليهن سيدا وكل دوين قبائل كودي سيدا سلينايان يعني معناها قفك هدو يعني جو ياسا معناها دحدث يعني جو نوع عاصو كلا أو ما ركتي أنا قلفت جيجا مركز إمد waxaa dhici karta meesha aan ka imid iyo dadka meesha aan imid inuu farq weyn u dhaxeeyo dadka ay isleynayaan laakiin aniga dadkan inay yihiin dadka igu xiga macna inay yihiin dadka walaalahay inay yihiin maanta hadii la damco in laga dhaadhiciyo hooyada la yiraahdo hebel halkaas uu jooga ay aad u la yaab macnaha aysan rumaysan lahayn macnaha qofkii uu san ku soo degdegi lahayn laakiin aniga waxa ugu dadajinayay ay ahayd dadkan waxaan mideynayay in ahayd kelimada tawxiidka macnaha oo runtii aayadaas aan u maleeyay markaasba in Ilaahay subhanahu wa ta'ala aniga igu soo dejiyay oo aan u dareemay dadkan dad walaalahay ah dadka igu jecel ayagu anaguna aan dadka ugu jecelahay xigta iyo qalaabo ay yihiin oo markaasna aan dhadhansaday qofka muslimka jinsiyadiisu inay tahay aqeedadiisa macnaha waxa uu rumaysan yahay jinsiyatul muslim aqeedatu waxa uu rumaysan yahay qofka muslimka ah inay aqeedadiisa tahay laakiin aysan ahayn ma aragtay wax afka laga sheegto ama la yiraahdo hebel baa saana ahay qabiilkiisa aysan wax kale aysan ahayn macnaha dareen ma aragtay runtii noocaas oo kala baan kala kulmay wax yar baa ku dari lahaa markii aan magaalada Muqdisho ka baxayay dareenkii kale oo aadka ii taabtay waxa kamid ahaa horta waxaan la kulmay niman dhalinyaraayo aniga facayga aniga ila eg markaas ilada ah oo runtii markii aan la kulmay habeenada kamid ah anaga oo isla akhrinayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa aniga dareenkaygana markaas aan ma aragtay aan laftigaygu aad ula shaqsanahay waxaan dareemay nimankaas inay macnaha aayadaha quraanka ay akhrinayaan iyo say u dhadhansanayaan anigi marka waxay uga abuurtay yani dareen ma aragtay runtii aan aad uga xishooday oo ah inaan kitaabka Ilaahay ma aragtay markaas aan si fiican u barto oo aan si fiican u daraasay maalinkii aan Muqdisho ka baxayay dadkii aan u imid 20 bari kaliya aan la joogay ana u hiloobaya oo isla Ilaahu yaa ku dheereeyay macnaha muddada maalinkii aan baxayay waxaan xusuustaa qofkii yani walaalka ahaa oo aeroboortka igeeyay oo isagootinayay markii aanu maaragtay ismucaanaqaynay oo aan ismac salaameynay markaan ka dhaqaaqay muddo aad u badan baan ooynayay macnaha dadkan walaalaha ah inaan ka tago iyo jacaylka aan u qabo waxa cajiiba macnaha dadkan shalay baan la kulmay isla markii dareenka intaas la eg iyo jacaylka intaas la eg iyo inaan saa ugu hiloobo waxa i gaarsiiyay runtii wax yar ma ahan lidaalika kelimada tawxiidka dad cid walba oo kelimada tawxiidku ay mideynayso ba qaabka u dhaqmi kara ama saas dareemi kara ma ahane cid kale oo ma aragtay dareenka noocaas heli karta ma jirto dareenka waxa lagu helaa waa tawxiidka bas هذا أمهات محمد يعني قفك أنت وحاك شيء معنا وحا عرفت قفكنا سياسي وح أو أركي أو كهر مقضي أو دنسدا أيو مارتك شيء كرا مركا هذا يا أمهات سنتاي سؤال شيء تحتاي معناها حق وح برشة يعني سيدا المانتي الدين الإسلام كبرشة دي أنت جماعة أكون حجرتي كهر أو مساجد كسوق قاعدة تقريبا يعني لكن جماعة دحية أتصف عن مرة القرآن كي برشيسي لأنه لا شيسي هي طبعا تي مهدي هنا ولا أيضا هنا نورته ترى وما سنت يورتا waxaan dareemay macnaha wixii waxbarashadeeda horta waxa ugu weyneyd maaragtay dhinaca diinta islaamka oo qofka muslimka maaragtay dhisaysay oo horkacaysay liibaantiisa adduunka iyo badbaadadiisa aakhiro labadaba maaragtay horkaca u ahayd oo nala baray oo ugu horeysay aqeedadii runtii daraasada iyada ah oo noo socotay tarbiyadeeda ku dhex socotay oo aan fadhiga ku wada qaadanaynay maaragtay dadkii adeeradeen ahaa iyo wiilashii walaalayaalkay ahaa khayr Allah siiyo waxaan dareemayay inay tahay nuxurka nolosha qofka bini aadamka ah guud ahaan kadib markii daraasadaas kadib markii aan maaragtay baranay yani dhinaca maadiga markaan eegayna ayadaa sabab u ahayd in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala maaragtay waxyaabo badan uu igu horkacay oo Ilaahay uga badbaadiyay akhlaaqiyadkii marka dadka aniga aan ku dhex jiro ay ku dhaqmeeyeen qaybo badan oo kamid ah macnaha bulshada markaas dhaqankeedu wuxuu ahaa dhalinyarada aniga facayga aan wax isla baranaynay inay moodo ay qiimeynayeen alxamdulillah Ilaahay uu iga badbaadiyay Ilaahay ma mahad iskale
yacni in markaas ay aada u badnayd in dadku maaragtay heesaha uu dhegeysto oo maaragtay dhalinyaradii ay ku faanaan ayadana ilaahay subxaana watacaala maaragtay waxyaabihii uu maaragtay iga badbaadiyey qeyb bay ka ahayd. daraasadeyda marka maadiga mar walba waxaa ii kabeysay oo kaalmo ilaahay aan kaga helayay dhinacayga maaragtay maadiga iyo juhdiga ay maaragtay dadka walaalaha ah ay maaragtay ku bixinayeen arrintaa iyada ah. marka intaasaan jazaaka allahu khayran. فسرنا بالجماعة هدي طه نقيم بظلها الحق المبين وكم كنا نتوق إلى dambayso yani inaad nooga waranto macnaha shucuurkaadii yani sidciga sida u dareentay yani iyo markaad sidcisay kadibba maaragtay maxaa yeelay nin dhalinyaraha macnaha markuu diin ilaahay subxana watacaala uu usoo istaago oo uu sheegayo yani oo haddana jaamacad ka soo baxay oo dhaqaalo soo bartay waxaa dadku waxay leeyihin war maaragtay ninkan yani xagguu diinta kusoo bartay. marka ficlan waxa muhiimadda aan su-aashan ku weydiinaya macnaha waxay tahay inaad nala wadaagtid macnaha shucuurkaadii yani maadaama jamaacada ay marxaladaas kasoo baxday marxaladan kale ay soo gashay adiga maaragtay jamaacada aa ka mid tahay macnaha shucuurkaadii sida aa u dareentay macnaha sidciga inaad noo suurayso. tore waa mahadsan tahay. horta marxaladdii ugu horreysay oo maaragtay sadciga markii maaragtay go-aamadiisa aan qeybo ka mid a ama aan maqlayay qeybii markii aan maqlayay runtii dareen weyn oo maaragtay dhinacna aan farxad ka dareemayey dhinacna aan mas-uuliyad ka dareemayey baa mar walba igu soo dhacayay. khayr allaha siiyo sheekh mustafe oo amiirka jamacada sheekh mustafa jaamil maxamed amiirka jamaacada asaadicuuna bilxaqi cajaladihiisa markii ay maaragtay na soo gaaraan oo aan dhegeysano waxaan maaragtay fadhigaa isaga kala kici jiray macnaha dareen ah qofka muslimka inuu ku noolaado. runtii waxa uu noo soo gudbinayo waxaan dareemayay inay yihiin wax asaga uu la noolaaday. waxyaabaha dadku ay qiimeynayaan oo maalan inaan la isxiro ama waxaan la isyeelo ama la isdilo macnaha inaysan ahayn haayada haayadu ay tahay maaragtay jannada ilaahay iyo raalli ahaanshaha ilaahay subxaana watacaala. mar walba inay tahay raalli ahaanshaha ilaahay inuu nooga horeeyo raalli ahaanshaha maaragtay bani aadamka. waxyaabihii aan aadka u xusuusto oo aan dareemayo sheekh mustafe khayr allah siiye waxaa ka mid ahaa oo mar walba aan dhegeysan jiray aayadda ilaahay subxaana watacaala uu ku leeyahay yani am xasibtum an tadkhuluu اljannata walamaa yaأtikum mathalu اladiina khalow min qablikum masathum اlba'saau wاldaraau wazulziluu xataa yaquula الrasuulu wاladiina aamanuu macahu mataa nasru اllah alaa ina nasr اllahi qariib. macnaha waxaan dareemaynay sadciga kan inuu yahay wixii aan ku gudan lahayn maaragtay raalli ahaanshaha ilaahay subxaana watacaala oo alle aan ugu dhowaan lahayn inaan nahay inuu yahay buu maaragtay sheekhu maaragtay runtii waxyaabo badan oo noo tusinayay. nafta oo la jeclaystana waxaa ka horeysa in maaragtay ilaahay subxaana watacaala hortiisa u qadintid. waxyaabaha aadka maaragtay runtii aayadaha aan aadka u xusuusta waxaa ka mid ahaa yacni inuu qofka muslimka ah ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum biana lahum اljanna. macnaha aayadahaas markuu sheekhu akhrinayo runtii waxaan dareemi jiray dareen aada u weyn baan dareemi jiray. runtii ma dareemi jirin isaga sida uu dareemayo mana dareemi karin waayo asaga sheekhu wuu la noolaaday aayadahan uu noo akhrinayo. xilliga iyada a marka waa xilliyadii aan intaan weli la sadcin aniga marka dareenka noocaasaan la noolaa. waxaan dareemayay dadkayga inay u baahan yihiin islaamkan aniga aan arkay macaankan aniga aan arkay yacni islaamkii dhabta ahaa oo ilaahay subxaana watacaala loogu dhowaanayay inay dadku baahi badan u qabaan. waxaan xusuustaa xilli aan magaalada gaalkacyo joogay macnaha dulmigii meesha ka jiray macnaha waxaan xusuustaa maalin anoo iskuul ka imid oo duhur ay tahay baa masaajid dariska ahaa baan dabcan inaan kusoo tukado kuwo maaragtay qoryo wato oo mooryaana baa intay soo tageen gaari niman saarnaayeen intay ka dejiyeen bay xabad madaxa kala dhaceen. waxaan dareemaya macnaha ninkan mooryaanka ah oo saan u dhaqmaya baahi inuu u qabo islaamka halkan lagu hayo oo maanta haddii islaamkan uu gacanta ku hayn lahaa runtii uu dareemi lahaa macaanka ah anigu maanta dareemay inuu dareemi lahaa baan dareemaya marka xilliga iyada ah. kadib markii la sadciyey runtii habeenkii ugu horreysay oo maaragtay dadka la gaarsiiyey oo alla uu qadaray in dadka uu maaragtay dhawaaqan uu gaaro runtii kama sheekeyn kara dareenkayga sida habeenkaa uu ahaa. habeenkaas waxaan xusuustaa waddaa marayay jaanis waxaan u heli waayey inta yartahay aan gurigeyga tegayo macnaha aad baan isku qaban waaya xitaa hadda ilaa hadda waxaan xusuustaa barti aan marayey
ilaa haddeertan waan garanayaa macnaha dareenka ay ugu lahayd iyo sida ay ila weyneyd habeenkaas wuxuu ahaa habeen runtii noloshii hore lagu socday qayb badan oo ka mid ah isbedeshay macnaha waxaan dareemay nuurka kan saa u ifay inuu guri walba geli doono oo maaragtay uu ka soo jawaabi doono oo dadkaasna ilaahay subxaana watacaala in badan oo ka mid ah uu ku manaysan doono islaamka oo ay ilaahay subxaana watacaala maaragtay raalli ahaanshihiisa halkaas ka raadin doonaan waayo anigu waxaan ku sugnaa nolosha maanta dadkaas ay ku sugan yihiin maalmaha ka mid ah waa ku sugnaa ilaahay wuxuu iga soo badbaadiyeyna nuurkan buu ahaa alxamdulilah rabbilcaalamiin marka waxaan rajeynayay in ilaahay uu ka soo badbaadiyo ilaa haddeertaana maaragtay wuu socdaa dareenkii maalinka aan dareemayey hadda ma dareemayo laakiin waxaan dareemayaa inaan maaragtay dadkaygu baahi ay ii qabaan aniga inay ii baahan yihiin anigana maaragtay aan yani aan dareemayo dhibrin aan dareemayo in ilaahay maaragtay uu ka soo badbaadiyo xaaladda iyada ay ku sugan yihiin oo ay usoo kor noqdaan macnaha islaamkan iyo macaankiisa iyo wanaagiisa macnaha islaamka sheegashada ah oo aan dhaqan lahayn sida ka hadashaba haa inuusan yani qofka uu macnaha kitaabka ilaahay u laabto oo isku bandhigo kadibna noloshiisa ay soo baxaysa maaragtay waxa uu ku sugan yahay maxaa yeelay qof yani islaamka iyo sida ilaahay subxaana watacaala maarata saxaabada iyo dadkii nagu horreeyay ugu nooleysiiyey maanta qofka macnaha jawga jira haddii la fiiriyo ama waaqaca jira haddii la fiiriyo macnaha waxaa soo baxayso baahi weyn in loo qabo dadkan in mar labaad ama min jadiid in islaamka loogu yeero macnaha waxaan ka dareemaa hadalkaada in toore aad baa umahadsan tahay halkaas haddaan wax yarka aan dib ugu laabto runtii waxaan dareemayaa oo ilaa shalay ilaa markiina aan dareemaya haddana aan dareemayaa kitaabkan inay dadku baahi u qabaan kitaabka qur-aanka ah in baahi ay u qabaan saxaabadii waxa bedelay oo intuu gaalnimadii kasoo kaxeeyey noloshoodii rasmiga ahayd keenayna kitaabka qur-aanka buu ahaa waana laga hadlay jamaacada asaadicuun bilxaqi baab dhan oo jiilun qur'aaniyu fariid la yiraahdo bay uga hadashay runtii anigana mar labaad markii aan dhageystay saameyn ugu yeeshay dadkana waan kula talin lahaa maaragtay in badan inay maaragtay ka faa'iidaystaan baabka isaga ah jazaaka allahu khayran maxamed aad ayaa u mahadsan tahay kaaga mahad celinayna barnaamijkan quruxda badan nala wadaagtay daawadayaal idinkana aad ayaa u mahadsantihiin xalaqadan halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa waa inoo mar kale insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وكم كنا نتوق إلى بلاغ نكون به الهداة المهتدين وها قد خصنا الرحمن حقا ألا أنعم بصدع الصادعين